arrimo jaahiliyadii ka mid ah xumaantii gaala iyo dhaqan xumadeeda laga soo gaadhay waxyaalo ka mid ah ummadaydu dayn maysa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaana ka mid ah oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam in aabayaashii awowyada iyo nasabka lagu faano aabahay baa kan ahaan jiray awowye baa kan ahaan jiray laan dheeraanu nahay ree hebel baana la dhahaa kanaanu ahaan jirnay in lagu faanaay waa jaahiliyadii gaalada ka soo jeeday umadayduna dayn maysa buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi wa sadaqa rasuulullaahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam waa runtii maanta maxayna dhex yaala qabaa'il dhan oo Soomaaliyeed ayaa taariikh dheer la soo dulminayay taariikh dheer la yasay taariikh dheer la xaqirayay taariikh dheer la nasab soocayay yaa dulmiyay yaa sidaa ku sameeyay yaa damiirkooda dhaawacay waa walaalahood waa isku diin isku luqad bay ku hadlaan waa isku midab waa isku dal waxay ku kala duwan ma jiro war maxaad ku yasteen oo ku xaqirteen oo u faquuqdeen lama yaqaan heer wuxuu gaadhay la yiraahdo heer wuxuu gaadhay maanta uu maraya meeshii dulmigan iyo jahiliyadan iyo xumaantan iyo muxuu ahay nasab soocani diintu ay baabi'in lahayd dhaqanka wanaagsani baabi'in lahaa aqligu baabi'in lahaa ayaa maanta waxay gaarsiisan tahay in la dilo oo la gubo maxaa loo dilay wuxuu ka qayb qaatay laba dhalinyaro ah oo xalaal isku guursaday inay isguursadaan buu ka qayb qaatay waa in la dilo hal la dilee inta haddii lagu dayn lahaa sharku waa isdhaamaaye haddana hal la gubo war maxaa loo gubay diinta ilaahay ka mid ma ah murtad diinka baxay gaal ilaahay inta uu necab yahay waxa ugu shar badan nin intuu islaamay diinta ka noqday ka laftiisa in la gubo ma ah gaalka asalka gaalnimadiisii wali ku sugan ee dagaalamaya ee muslimiinta laynaya markii laga xoog bato in la gubo ma aha murtadka diinta ka baxay in la gubo ma aha saas daraadeed baa nabigu diiday salawaatu rabbi wa salaam alayhi wardab allaha iskale baa wax ku ciqaabay adoomada looma ogolo inay dab wax ku ciqaabaan war dambigu galay weyna ila la gubo maxaa loo gubi علشان وحوي وجاهلية عيب بينو طاح وجهي النصارى تاريخ ذني شرف كنا داوع وين بيكوطاح إن ضد ولا لهن أو إن الدين أو إن الدل أو إن المذهب أو إن اللقاء أو وحبي إنك جد ونين إن دحدنا أن يسنون حقيرنا أو اللقعي أرى الظلمية تاريخ ذا أنت لك ما أنتنا أي سعة عيب وين بينو طاح مسلمين بعيب نقطة صوماليين عيب نقطة رغنا ذو اللي توه وحقلك أقبل كرماه واحد ضميرك أقبل كرماه ظلم قاسي إن لباب إياه ولا جامرمان ظلم قاسي إن لباب إياه ولا جامرمان تاريخ ذا در سوتشري كفارة كلام مله إلا إن لي سقوط تقصدي لباب إن لها مويان أنا قاسا أقولينا قال دينا وأوقع عن هذه نيسا فالعجائب تنارك قال كي يهي أذيه سي حقوقه ويوقع عن هذه نيان وحيليهم ولا لهم بإذن ظلميي أنك عدالة إذن سمين إن نوئي مادا أنك إنا وحضركتين بانكو سمين إنا سويني فتنوبان ما سو markay wadamada gaalada tagaan inay yiraahdaan diintii dadkii ba ka soo tagnay soo laguma qasbin soo sabab looma noqonin dadkoodii iyo dalkoodii iyo mujtamacoodii bay ku dhex dulman yihiin gaala inay marka ka faa'iideysatay hay'adaheedu ilaa meesha dabacsan ee jilicsan bay mar walba mujtamaca ka galaane inaga marka halka dhignay kafaaradu waxa weeye hoggaanka dhaqanka odayaasha salaadiinta ugaasiyada malaaqiyada isimada waajib sharci oo khaas ah waxa saaran hawsha iyada